tartamo tartamo ayay dulucdeedu tahay maye dalkiyo dadkaba maye dalkiyo dadkaba uwiidadii lahaa degaan iyo baarlamaan dalkooda in loo tartamo ayay dulucdeedu tahay dalkooda in loo tartamo tartamo ayay dulucdeedu tahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka masraxa musharaxa uu martin ugu yahay mujaahid jaamac Kowsar Axmed oo ka sharaxan golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex uga tartamaya sidii caadada intaynaan guda gelin su'aalaha barnaamijka waxaan weydiin doonaa jaamac Kowsar Axmed taariikh nololeedkiisa waxbarasho aqooneed siyaasadeed iyo su'aalkiisa nololeed inuu faahfaahin inaga siiyo بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت حسن سيدا حسن دي شيغان waxaan jaamac Kowsar Axmed ku dhashay Hargeysa 7 ilaa 8 ku dhashay taariikh waxbarashadayda dugsiga hoose dhexe sare waxaan dhameeyay 76 markii aan iskuulada ka baxnay waxay ahayd xaalad iska taagan bariga oo dadka daayirtii waxay u qaataan in 88kii in hawshu bilaabantay xiliyadii hawshaasi bilaabantay bay kamid ahayd markii aan ka baxay iskuulkii sare waxa jirtay dabayl dhoof baa jirtay oo Sacuudiga xilligaa waxaan u dhoofay 78 meelaha waxaan u dhoofay Arabaha Sacuudigan tagay Sacuudiga waxaan ku dhowr sanadood baan ku maqnaa wixii dhowrkii sanadood ka dambeeyay waan iska soo noqday wadankan ku soo noqday wadanka oo xaaladdu marka ay taagan tahay bilaabantayba 88kii markii wadanka laga qaxay la oran doono heshiis bay galeen Itoobiya iyo dawladii hore Soomaaliya ayaan anigu noqday dadkii ku biiray Jabhadda Sana 89 waxaan noqday xubin kamida siyaasadka logistikada SNMta wadan sidii baan wadanka ku soo galay alxamdulillaah rabbil caalamiin markii wadanka la soo galayna 1992 waxaan ka mid noqday boardkii Sooyaal oo Allah u naxariistay xilliga uu gudoomiye ka ahaa Xasan Guura Jaamac ilaa 94kii waa Sooyaal baan board of directors of Sooyaal wixii halka ka dambeeyay waxaan ka mid noqday wasaaradda gaashaandhigga oo aan jagooyin kala duwan ka soo qabtay ilaa xilligii ugu dambeeyay ee aan shaqada ka tagi doonana aan ahaa agaasimo waaxid intaas dhowr iyo tagaas mad lagu jiray waxaan soo qabtay jagooyin kala duwan oo agaasimo waaxid u badan waxaan jecelahay in ayowga aan ku soo koobo taariikh nololeedkayga waatahay jaamac imika waxaad u sharaxan tahay golaha wakiilada gaar ahaan xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodi Jeex uga tartamaysaa sooyaalkaagii taariikheedna in badan waad nooga soo warantay hawshan golaha wakiilada maxaa kugu kalifay kugu dhaliyay aad u doorbiday inaad doorkan baarlamaan noqoto haddii eebayd ma waa su'aal wanaagsan jaamacadda Hargeysa qaybteeda sharciga ayaan 2014 ka baxay bariga aan geliyay jaamacadda aan qaybta sharciga doortay ayay ahayd niyadeeda ku jirtay inaan noqdo mar uun ka mid noqdo sharci jidin Soomaaliland alxamdulillaah waxaan isleeyahay maanta ma laha suurta gashay inaan noqdo waxa sababtay u kaliftay tahay horta aqoontii sharci baan leeyahay waxaan isleeyahay qabyo jirta awgeed waxbaad ka kaabi kartaa haddii alla idmo ilaahay meesha ku geeyo waa talabaade dhowr soddon ku dhawaadkii sanadood dalka lagu jiray goob joog baan ahaayo gol daloolooyin baan arkayaa aan isleeyahay waad gufeyn kartaa haddii ilaahay kugu guuriyo goobta ayada sababayoogaas ay igu kalifeen inaan isu sharaxo inaan noqdo xubin gole wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland
okay tan iyo intii aan wareysanay musharaxiinta dhowr fara ku tiris ah baa carbaabay galdaloolooyin u muuqda oo qaranka ay rabaan inay ka gufeeyaan inay isu sharaxaan taas oo oran karno waa higsi qofku uu muujiyay oo iyo baahi uu tabay oo dalkuna u baahan yahay qofku inuu garasho u yeesho hawsha u socdo galdaloolooyinka uu tabayo ma nala wadaagi kartaa galdaloolooyinka xeer ee sharci ee ku muuqda isleedahay hadii lagu doorto aad kabtid oo aad wax ka gufaysid waxbaan ka tilmaami karaa waayo markaad adiguba u fiirsato xeerarkeena iyo sharcigeena dastuurkan baad soo qaado qodobo badan baa waxaa ku taala xeer baa qeexi doona ilaa xilligii dastuurka la ansixiyay ilaa maantana weli xeerkii qeexayay waxba lagama qabanin waxaan is leeyahay haddii aad isla heshaan jaanta dadka aqoon-yahanka imanaya golaha wakiilada haddii aad isla heshaan oo aan filaya in rag badan oo sharci yaqaani ku jiraan inaanu meelayooga aanu sheegayna ee ahayn xeer baa qeexi doona inaanu wax ka kabi doono waa gartay sideedaba hawshan doorashadu culayskeeda iyo dhibteeda iyo kharashkeeda ayay leedahay maxaad is leedahay kharash intee legba kaaga baxaya yaase kaa kabaya bal arrintaa noo yar faahfaahay wallaahi in wax dambe ma ogi waa run kharash adag baa baxaya oo u baahan dee in loo dhabar adeego ilaa imika cid wax iga kabtay oon dee dadka sokeeyahayga ahayn oo aan idhaahdo ciddaasa ama institutionkaasa wax iga kabay ma jirto waa aniga iyo intii ilaahay baday baa isku tashanay haddii ilahayd waa tahay sideedaba musharaxiinta marka la doorto waxaa laga yaabaa afkaari kala duwan bay xambaarsan yihiin dabcan afkaartii xisbigaaga kulmiya waad xambaarsantay laakiin maxaad kaga duwanaan doontaa murashaxiinta kale ee kula tartamaya adiga oo ku darsanaya sifihii lagugu soo xulay inay ku jirtay karti aqoon iyo daacadnimo haddii eebeedma horta in qofku inuu sheego maaha waa in waqtigu sheega iyo hawsha ay sheegtaa laakiin waxaan is leeyahay waxba ka hakran maysid dadkii ku soo doortay iyo dalkii ku doortayba qarankiiba inaan u hadh iyo habeen iyo intii kartidayda awoodeed ah ee qofeed ah inaan u shaqeeyo ismelihi waxbaad ka hagran doontaa waxaana weeyaan waa run waxaan xambaarsanaan doonaa dee fikradka aan xisbigan ku doortay ee oga midka ahay ayaan ku shaqayn doonaa waxaana weeyaan fikirka waxaan ku dheeraan doonaa mar kasta maslaxadda dalka iyo dadku halkay ku jirto inaan u tagnaado haddii lahaydmo dabcan xisbiyadu waxbay ku loolamaan siyaasaday ku kala duwanaadaan aragtiy ku kala duwanaadaan waxaa dhici karta marmarka qaarkood xisbiga ka soo baxdayba muushina ma sharci uu wato uu ku khaldan yahay inay dhici kartaba ila bini'aadamku mar walba sax ma noqon kare ka aragti ahaan jaamac ma laga yaabaa inaad deedafayn karto ama aad ka hor iman karto adigoo murashaxnimadaada iyo aragtidii xortayda lagugu soo doortay iyo ku qiimeynaya aqoontaada mar kastaba gartu gar waa loo islaamay haddii xisbigaygu dee wax qalooca wado tala ka dhiibasho iyo fikir ka dhiibashaan xaq u leeyahay inaan ka dhiibtaa oo aan idhaahdo malaha sidana ka qurux badan ama sidana ka toosan inaan talada ka dhiibto waana ku rajo weynahay in haddii ilaahayd mo taasi timaadaan tala ka dhiibto haddii ilaahayd mo waa tahay haddiiba lagu doorto oo aad soo baxdo insha allah deegaankii ku soo doortay iyo shaqadii maslaxadii xisbiga iyo tii golaha ee dalkoo dhan aad u haysay intaba kulliba inaad isu waafajisaa waa daruuri dadku inta badan waxay kaga cawdaan murashaxiinta doorta inaanay halkii laga soo doortay dib ugu noqon maxaad ballan qaadaysaa waxaan ka horreysiinayaa su-aashaad weydiisay hal talo hal arrin baan ka horreysiinayaa oo diiwaangelintii imika socotay anigu waxaan ahay ninkii u baxay hawd ee goob dadkii aan dooranayeen codka ka doonayeen lahaa isdiiwaangeliya nin walba deegaankii ku noolaa iyo tuuladii ku noolaa baan u tagay ilaa xadkan ka tallaabay oo aan dadkii u tagay soo dooqay midna waan ballan qaadayaayo anigoon doorasho markii aanan doorasho u diyaar ahayn ayaa waxaan ahaa nin u adeega dadkiisa mar walba maantana dee xilbaaba ay fuulayo oo xilkaa ay fuulaya wuxuu igu qasbayaa inaan u adeego shacbiyadii isoo dooratay
oo dhagahayga iyo maqalkayga iyo taladeeduba ay u furaato oo ku aan weliba iswaafajiyo saddexda shaqadii weydiisay tii xisbiga tii golaha iyo tii constituency soo doortay saddexdaba waxaan ku qasbanahay inaan iswaafajiyo oon u shaqeeyo dadkii soo doortay oon baahidooda ogaaday xaaladooda okay waxa kale oo ku weydiin lahaa kulliba marka qofku musharax ay soo baxo waxa golahu u kala baxaa guddi hoosaadiyo guddi hoosaadiyadaasoo kala duwan ka khibrad ahaan waxaan filayaa guddidaad aqoonta u leedahay iyo qorshahaad ka kabi karto bal inaad nala wadaagto waxaan is leeyahay horta dee doorasho maaha qofku ma doorto guddida iyo guddi hoosaadka golahay u taallaa iyo cidda xulaysa waxaan se is leeyahay haddii aad midun ka mid noqon lahayd guddiga shuruucda ood ka mid noqotaaba ayaa wanaagsanaan lahayd waayo dee waxaan ahay nin sharciga soo bartay oo aqoontii sharciga leh halkaasaan wax ka kabi karaya haddii ilaahayd ma oo ay noqoto doonisteeda hadday noqoto oo aan ka mid noqdo guddi hoosaadka sharciga haddaan ka mid noqdo sharciga wax ka kabi karaya tii kale laga gartana waxaan is leeyahay waayo aragnimo fara badan oo ma ihi dee nin yaroo dhallinyaraa ma ihi nin weyn baan ahay oo soo shaqeeyey inaan is leeyahay tu maamul iyo tu hawleedo kaleba haddaan ka sharciga ka tago inaan wax ku kabi karaya haddii ilaahayd ma waa tahay jaamac kosaar axmed waxaa kaloo ku weydiinayaa golaha wakiilada waa hawl culus oo shaqo culus waa halkii qaranka ugu sarreysay waa halkii xeerarkii shuruucda dalka dejinaysay dastuurkeennuna qodobo waajibiyey baa jiro oo ah sifaha lagu noqon karo murashax dad badan oo murashaxiina oo u tartamaya xilkaasi waxaa laga yaabaa qodobada aasaasiga u ah inaanay qaarkood garanaynba tusaale ahaan muxuu qofku musharax ku noqon karaa dastuurkeenu tilmaamaya muwaadinimadii ka hadlaysaa akhlaaqdii bay ka hadlaysaa muwaadinimadii ka hadlaysaa diintii bay ka hadlaysaa aqoontii waxbarashay ka hadlaysaa haddii eebeed maayo nin akhlaaqdiisu ay tahay akhlaaq diini ayay ka hadlaysaa waa 10 marka qodobka la eego safaaduu leeyahay 1 2 3 4 5 ayuu leeyahay waxaan is leeyahay dee muwaadin waan ahay akhlaaqdaydu daadii way ka weyn tahay intii ka weyn tahay diiniyan waxaan ahay nin ku dhaqma xagga cibaadada oo u dhow xagga haddii ay beed maayo aqoontii waan sheego inaan aqoonta sharciga leeyahay waa tahay hal qodob baan doonaya inaad halkan nooga iftiimiso hadhow toole qofka musharaxa ah waxaan u duubaynaa barnaamijyadan ay ka mid tahay inuu wax ka bedelo iyo in uu sidii u ballan qaaday ku dhaqmo si hadhow toole markhaati fur iyo marag fur ay ugu noqoto laba qodob baan jecelahay inaan ku weydiiyo markaa ka dambe laakiin ka hore maxaan kaa gunudnaa maanta oo aad leedahay bulshooy igu doorta anigoo ah jaamac kosaar axmed dalkana in badan usoo shaqaynayay igu doorta inaan tallaabooyinkaas qaadayo aan kaa gunudnaa waxaan bulshada leeyahay igu doorta kow daacadnimo igu doorta baan leeyahay wax kale uu ma jiro oo inaan daacad u noqdo dadkii isoo doortay isla markaana qarankii la ii doortayna aan daacad u noqdo inaan howlkarnimo iyo u adeegis qaranka iyo bulshadii soo doortayba iyana igu doorta baan leeyahay islaamnimona igu doorta baan leeyahay oo nin maanta aan isleeyahay ayniga aan ahay ninka ugu dhaqan badan xagga diinta oo saacadaan kula hadlay imkaan fadhiyaba waan soomanahay isniin walba iyo khamiis walbana waan soomaa bishii maasha allah waxaan isleeyahay kuma faanayo oo faan kama dhiganayo waxaan leeyahay inaan ilaahay u dhowahay u tilmaamideedaan u tilmaamaya haddii ilaahaymo insha allah gabagabadii barnaamijka maxaad ugu baaqaysaa taageerayaashaada bulshada reer somalilan doorashaday nagu soo socotaa haddii ilaahay yidhaahdo oo ah doorasho awoodeeda leh oo markii ugu horeysay taariikhda somalilan ay dhici doonto laba doorasho isbarkan taasoo insha allah sidaynu ku rajo weynahay markay dhacdo guul iyo sharaf noqon doonta qaranka somalilan gaar ahaan xukuumadda talada haysa dhan nabadgeliyo baaqaa diraysa maxay tahay horta waa run waa markii ugu horeysay somalilan doorasho caynkaas u barkan ay ka dhacdo waxaan bulshada leeyahay ha loo feejignaado doorashooyintii hore way ka duwantaho waa laba doorasho
in loo feejignaado ayaan horta ku talinaya marka ugu horeysa. marka labaad doorashada nagu soo beegani waa taariikhda Soomaaliland bay hal talaabo hore u qaadaysaa haddii sida aynu jecelahay ay noogu dhacdo insha Allah waa inoogu dhici doontaa. taasina waxa weeyaan qof kasta oo Soomaaliland waajib ka saaran inuu ilaaliyo habsami u socodka iyo habsami u dhicista doorashada komishanka qoro taalo Soomaaliland oo taala hadii ilaahay dawlad shicib musharax midaan musharaxayn intaba ayuu taala. talabaad ilaahay waxaan ka baryayaa xilliga doorashadu iyo maanta jooga cirkaynu eegayna waa kala yar way adag tahay xaaladda in jiilal baa soo beegan. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jiilalka inaga jibiyo oo inagoo barwaaqo oo raxmaadku ilaahay inoo shubay ay doorashada nagu soo beegantaa. taageerayaashan waxaan leeyahay hawsha bilow baynu taaganahay haddun bay bilaabatay hawshii doorashada iyo hawlgalkeedii. waxaan leenahay 31 May doorashada dhici doonta haddii ilaahay ina gaarsiiyo. taageerayaasha waxaan leeyahay in chief iyo joogba aan ku hawlgalno sidii aynu doorashada uga qayb gali lahayn inuu waliba guul uga soo hin lahayn ilaahay saasaan oran. وتهاي كاسنا وحوها جامع كوسار أحمد وأحمد مرشحين تقول هو وكيل هذا وقت ترتمي حسب كل بيه قبل كمرود الشيخ انتهى البرنامج كان الله مدة كل مدونه وحنا تجي يعني جوا حسن إسماعيل محمد حسن شاه سدائيو نبذ كليو أبا ما سنت جامع.